daawadayaal halkan waa xarunta degmada Yakshiid ee magaalada Muqdisho saaka meel aan ka fogeen xarunta saldhigga booliska ee degmada Yakshiid waxa ka dhacay dhacdo aad runtii u argagax badneed kadib markii mid ka mid ah dhalinyarada degmadan uu hooyadiis gacan u qaaday isla markaana uu dhaawac daran gaarsiiyay markii ciidamada booliska ay qabteen oo xabsiga la geeyana kadib xabsigii uu isku daldalay haddaba si dhacdadaas aan wax badan ugu ogaano Raadsan TV waxa uu soo gaaray xarunta degmada Yakshiid ee magaalada Muqdisho waxaana halkan kula kulanay Axmed Cabdulle Maxamed gudoomiyaha degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir si aan faahfaahin dheeraad ah aan xogtan uga helno gudoomiyaha oo Raadsan la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyay bal sida ay wax u dhaceen mahadsantiin Raadsan TV saakay waxa dhacay dhacdo oo si hadii loo fiirina aad u xanuun badan qadirna oo qadirtu waa lama dhaafaan saakay waxa dhacday maamo kamida maamooyinka degmooyinka Yakshiid degan ayaa wiilay iyadoo dhashay u gacan qaaday wiilkii maamadii adiga dhib u gaarsiiyay oo aad u xoogan waxa dhacday markii inay qaylisay nasiib wanaag waqti oo la soo jeeday eeday qayladeedii waa gibdha iyo diisi oo lagu soo baxay markii lagu soo baxay waa laga badbaadiyay saldhiggii la soo xiriirtay waa la tagay waxa la isku soo waday maamada iyo wiilka saldhigga markii la tagay maamada dhaawac xoog leh ku yiilay oo u muuqday in feeraha iyo wax ka gaarsan yihiin yarkii wiilka iyada dhashay oo hooyadiisa ahayd yarkii saldhigga lagu xiray maamadina isbitaal loola caaray oo arrimo caafimaad u baahnaaday isbitaalka la geeyay isbitaalka markii la geeyay marka maamada intay isbitaalka iyo baxnaanada ku maqnayd waxa dhacday wiilka waxa la geliyay xabsiga dadka ku jiraan la geliyay xabsiga markii la geliyay marka xoogaa buuq uu sameeyay qaylo oo laga soo baxshay kaligiisa la geeyay kaligiisa markii la geeyay muddo kadib marka qolkii la furay duqd intay maqnaaday loo yeeray markii qolkii qolada maxaabiis ku dhigeenada waxay yiraahdeen qorkan qayladiisa zaid waa ninkan la soo fiiriyo markii la soo fiiriyay waxa la arkay asoo inta funaanadiisa isticmaalay oo meel kor ku soo xirtay funaanada qoortiisa ga xiray ka soo raaraa meel kor ka soo raaraa farkunalka kor qolka inta ku soo xirtay meel ka soo laalaa markii diisiisi waa laba qodob ay mid doortay wax oo qofkani dhacdadii uu geesto hooyadiis uu geestay inay xanuun ku reebtay oo xanuunay oo dhacdadaas ay ku reebtay darteed inuu isu dilay waa macquul in wax jirkiisa ku jira ama caafimaad ahaan ugu jiraan ama daraagisaan ugu jiraan wax jirkiisa ku jira oo wixii tuqda ku qasbay inuu hooyadiis dilo wixii ku qasbay in haddana ku geeyeen inuu istilana waa labaysa waa labadaas oo dhacdo mid door isu dili kara hadii uu ogaal ku yimiday oo isleeyahay dhibkii hooyadiis oo dib inuu xanuunsaday ee xanuun ay ku qaatay inuu hooyadiis u gacan qaado oo dhibkaas isbitaalkaas uu geli oo feerahiyad wax gaarsiiyay oo 9 bilood feerihi ku soo qaado oo wax gaarsiiyay inay xanuun arintaas ku reebto inuu isu dilo macquul in wax jirkiisa ku jira ama caafimaad ugu jiraan oo ku dhashay ama daroog ahaan ugu jiraan ay ku keentana waa laga yaabaa labada sababood mid oo isu dilay arinta dheeraad markii CAD loogu yeeray maamadina baawra loo diray isbitaalka waa laga soo waday CAD maamadii la soo keenay maamadii nasiib wanaag markii meeshii la keenay wiilkii aragtay waxay tilmaameen anaka soo duuganayna waa waxada oo saldhigu oo doonay oo inta dacwo loo keenay la doonana ma wax ehelku inta yimid uu yiri la kala badbaadinay marka waxay qorsheyn wuxuu ahay si guud in maamada markii la soo daaweeyo ehelka la warsado in maxkamad la geeynayo in dhaqan calin la geeynayo go'aanka laga gaarayo qaybay ka aheeday haddaba si qayb uga aheed maamuday qayb ka ahaayeen haddana isla qaybtii ka qaateen oo qaybtii ugu wanaagsan ay ka qaateen inay midkii soo aasan wax kale oo culays kama jiraan waa intaas dhacdo meesha ka dhacdo maasantii dhacdadan waxa ay ka mid tahay dhacdooyinka xanuunka leh ee maalmihii ugu dambeeyay laga soo warinayay magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka waxaana inta badan loo sababeynayaa in dadka falalkan geysanaya qaarkood ay aad u isticmaaleen waxyaabaha maanka dooriya waa Abbas Hussein Muuse Raadsan TV xarunta degmada Yakshiid Muqdisho